milkaya maamuus weyn bay ii tahay madaxweyne ahaan inaan idinkala soo qayb galo xafladda lagu daafurayo bilowga sahaaminta shidaalka dalka. mashruuca sahaaminta shidaalku wuxuu si rasmi uga bilaabay gobolka Saraar iyo Togdheer, waxaana u gudbi doonaa gobollada Daadmareed, Maroodijeex, Hawd iyo Sanaag. anigoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya waxaan jecelahay halkan uga mahad celiyo dhammaan bulshada ku dhaqan gobollada howlgallada ka socdaan sida diirar ay u soo dhaweeyeen. si gaar ah waxaan ugu bogaadinayaa waayeelka iyo waxgaradka sida hagar la'aanta ah isu barbar taagay barnaamijka sahaaminta shidaalka ee ka socda deegaamada qaar. mar labaad waxaan ku hambaleynayaa dhammaan howlwadanada wasaaradda macdanta iyo tamarta oo hormuud ka yahay injineer xuseen cabdi ducaale doorkii iyo dadaalkii ay ka geysteen hirgelinta mashruuca qiimaha badan ee ka mid ahaa himilooyinkii xisbiga kulmiye. mudanaalaye marwooyin khayraadka iyo nimcooyinka kala duwan ee ba'aalamaha u qaybiyey waxay ka mid yihiin ayaanka iyo nasiibka la isdheeryahay. sidaa darteed waxaa lagama maarmaana inaynu ogaano wixii qadarka alle aynu qayb u helnay iyo wixii qaniimad dalkeenu hodan ku yahay. haddaba sina uga ku gaadhno arrimaha waxa laynooga baahan yahay inaynu la nimaadno tala adag, tawfiiq wanaagsan iyo taabulsho weyn. Soomaalidu waxaa ku maamaadaa soor baa lagu fadhiyaa ee sal laguma fadhiyo. sida qarankan loo hagay sida qarankan aan ku hagayo waxaa buddigu ah in la hirgeliyo horumar ballaaran iyo in la yeelo nolol dadku ka dugsan karaan. waxaan shacbiga ku leeyahay halku dhagyadii uu geljiru odhan jiray ragna duuru kuwaab jooga ragna dhaqashuu kugu dhabar jabay. mudanayaal iyo marwooyin waxaanu nahay xukuumad bisil oo ay ku duugan tahay dulqaad, dadwad, waayo aragnimo iyo waayeelnimo. sidaa darteed waxaan soo dhaweynayaa dhaliilaha dhabta ah ee runta ku dhisan iyo toosinta wax lagu dhisayo maamulkayga loo soo jeedinayo. anigoo mabaadida aan aaminsanahay ka duulaya waxaan diyaar u ahay inaan saxo wixii qaladama. waxaana la yidhi qalad waa markii la qabto. dhinaca kale waxaan ixtiraamayaa aragtida ka soo horjeeda hayaanka horumarka iyo higsiga himilada qarankan aan hoggaankiisa hayo. waxaan xurmaynayaa xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta. waxaan caddaynayaa inaynan jirin isla markaana aynan doonin cid lagu cabulinayo ama lagu ciqaabayo fikirkiisa qof ahaaneed. hase yeeshee waxaa reeban in sharciga gacanta lagu qaato ama laysu taago howlgallada sahaaminta shidaalka iyo mashaariicda kale horumarka ama maalgashiga ee dalka u soo hor yeeshay. waxaan u digayaa cid kasta oo isku dayda inay abaabusho khalkhal iyo rabshado lagu waxyeeleynayo amniga, nabadgelyada iyo midnimada ummadda jamhuuriyadda Somalilan. waxaan si cadceed u caddeynayaa in dowladda aan u dulqaadan doonin dibindaabyada dalka iyo dembiyada abaabulan ee qaranka lagu duminayo. arrintana waxay ka mid tahay xilka iyo waajibaadka saaran madaxweyne ahaan ee ilaahay la ii doortay. sidaa darteed far waaweyn oo aan gabasho lahayn baan kuu qorayaa. mudanayaal iyo marwooyin sida la wada socono dib u dhac ayaa ku yimid doorashooyinkii madaxtooyada
inoo qorshaysnayd 28 bishii saddexaad 2017 oo maanta ay naga xigto 2 casho xaqiiqdii aad baan uga xumahay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka madaxweyne ahaan ma jiro cid iga jeclayd in doorashadu qabsato xilligii loogu talagalay ciise iimahayo xigmadna uma arko inaan kursiga sii fadhiyo waqti ka baxsan muddadii xilaalkii ay doortay isla markaana muddo kordhin marba la ii sameeyo mansabkan aan qaranka u hayaa waxaan ku imid si maamuus leh waxaan jecel inaan kaga tago si sharaf iyo xaraga leh waxaan shacbigayga ugu caddaynayaa in arrintan aadan ku iman xeelad siyaasadeed iyo xukuumaddeeda oo ka dambaysay dib u dhacna waxaa keenay abaarta ba'an ee nagu habsatay muddo kordhintani waxay ka mid ahayd go'aamadii igu adkaa shakhsi ahaan ay soo maray muddadii aan talada dalka dalwareega ka ahaa sidoo kale waxay ka mid tahay arrimaha culus ee marar badan ka fakiray tan iyo intii aan hana qaaday anigoo arkaya duruufaha adag ee dadkayga haysta haddana si aan uga hortago dib u dhaca ku yimid doorashooyinka waxaan isku dayay inaan ku qanciyo madaxda xisbiyada qaranka in la isku maareeyo gurmadka abaaraha iyo qaybinta kaadhanka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo qabsoomidda doorashooyinka hase yeeshee waxaa iga hor yimid aragtida labada xisbiya mucaarad wadani iyo wixii oo ku adkaystay inuu doorashada dib loo dhigo muddo 6 bilood ah tala wadaag tawfiiq iyo tanaasul waa wixii aynu ku caanamaalay ummad ahaan sidaa daraaddeed nin nacab iyo nin jecelba waxaa madaxdii qaranku markaan ku marti qaaday madal loo leeyahay la gaadhay isfahan iyo heshiis qaran taasoo dib u dhig ku samaynaysa doorashooyinka madaxtooyada muddo 6 bilood iyo 10 maalmood ah heshiiska waxaan u gudbiyey aqalka golaha guurtida aniga oo ka codsaday inay sidiisa ku ansixiyaan marka aan si saalaxad leh u hadlo ima farxad gelin go-aankii ka soo baxay golaha guurtida oo ku saabsanaa muddo kordhintii loo sameeyey doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka hase yeeshee waxaan garwaaqsaday in golaha guurtidu yahay hay-adda dastuuriya oo arrintani ka mid tahay xilalka iyo waajibaadka ay qaranka loo hayaan sidaa darteed ka sakow saluugayga aan ka muujiyey go-aanka ah haddana waxaan u arkaa inuu yahay mid sharci ah waanan ixtiraamayaa isla markaana waanu dhaqangelayaa dhinaca kale waxaan ka garaabayaa niyadjabka ay ku keentay dib u dhaca doorashooyinkeenu dalalka aynu saaxiibka nahay ee inaga caawin jiray geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaan jecelahay inaan madashan uga mahad celiyo dalalka ka bahoobay midooda yurub iyo dowladaha boqortooyada ingiriiska ee taladii iyo taageeradii ay hore u geysteen nidaamka doorashooyinka somalilan waxaanu nahay ummad gob ah oo kala taqaan cadowgeeda iyo saaxiibkeeda sidaa darteed waxaa waajib inagu ah inaynu u abaal hayno cid kastoo waxayna gashataa ama waxayna tartaa geedi socodka dimuqraadiyadeeda iyo nidaamka doorashooyinka horta ah ma jiro cid inagu qasabtay isla markaana inagu sandullaysay balse innaga ayaa ummad ahaan dan iyo maslaxad bidnay ama u aragnay sidaa darteed ma aha mashruucani mid ay leedahay beesha caalamku balse waa mid aynu leenahay manfaciisa iyo mas-uuliyaddiisaba waxaan shacbiga somalilan iyo haldoorka xisbiyada qaranka
وعدينيا إن يقعد أنت هجامية هان أنا جاي ما بالكيجبا إن قبسوت دور شحري حلالي صدق هي توكل بشكوية توناد لما كل يتدري توكل سأنو مال مريم أو حقيقة دور شحري حلالة وضل كان كرعدا وحكومة إسساتي مسؤولية دي حريص نقالة وأنا هرد دولة السومالات وفوريشرين marka la barbardhigo nidaamkii saamiqaybsiga qarashka doorashooyinka Soomaaliland boqolkiiba 57 waxa bixin jiray dalalka deeqda bixiyaasha halka dawladda Soomaaliland ay ka bixin jirtay boqolkiiba 25 saamiga isbarbardhigga qarashka diiwaangelinta cod bixiyaasha iyo doorashooyinka madaxtooyada ee lagu soo foodaayo lagu soo socda waxa waa mid weyn aad uga duwan qorshayaashii hore ama saamiqaybsigii hore xukuumaddeedu waxay dooshay ama dawladdu ay ku dhow boqolkiiba 90 qarashada diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi doona November 2017 taasi waxay daliil cad u tahay sida daacad oo nooga tahay isla markaana diyaar garoolay gudashada iyo xilka wadareedka dusha laga saaray ugu dambeyn si loo gudo galo arrinta kaararka codbixiyaasha iyo diyaarinta wax kasta oo loo baahan yahay waqtiga munaasibka ku ah waxaa laga maarmaan aan u arkaa in wada shaqayn buuxda si joogto ah ay yeeshaan dhinacyada kala duwan ee khusayso arrimaha doorashooyinka sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in si wada jira loogu diyaariyo qorshe iyo jaangooyin lagu xaqiijinayo qabsoomidda doorashooyinka dabada isku haya isla markaana laga hortago dib u dhac dambe oo ku yimaada nidaamka doorashooyinka anigoo ka duulayo waqtiga yar iyo hawsha badan in hortaalla waxaan magacaabayaa ama aan isu keenayaa toddobaadkan guddi mustambeed ah ay ku leeyihiin 3 xisbiya qaran xubno kooban oo ka tirsan xukuumadda gaar ahaan wasaaradaha qaabilsan shaqo ahaan guddiga doorashooyinka qaranka iyo goobjoogayaal ama wakiillo ka soo jeeda deegaamada deeq-bixiyayaasha ama dalalka inaga taageera nidaamka doorashooyinka waxaan farayaa guddiga cusub mustambeedka ah ee toddobaadkan isu iman doona inay gufeeyaan guldaloolooyinka jira isla markaana ay ka kaalmeeyaan guddiyada doorashooyinka qaranka diyaarinta qorshayaasha loo baahan yahay road mapka ama frameworka waxaan farayaa guddida doorashooyinka qaranka inay xilka iyo waajibaadka culus ee saaran u gutaan si dadaal daacadnimo xilkasnimo iyo karti leh waxaan u ballan qaadayaa inaan la barbar taaganahay talo iyo taageero waxay iga baahdaanba arrimaha ku saabsan doorka xukuumaddeedu ka qaadatay taakulaynta abaaraha iyo qorshayaasha aan u diyaarinay mustaqbalka ka hor laga hortagi doono dhibaatooyinka isbeddelka cimilada geeska Afrika waxaan faahfaahiyey wasiirka sharci shukri xaaji badale allah abaarta naga jabi allah tubta toosan lagu hanuuni allah ma dooran kara adigu noo doon allah bogayaga balcad sumari